الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وجلسدي سدحاد برنامج كيني أها برا دين تاذا oo su'aalaha iyo jawaabaha ka koobnaa maanta waxaanu soo qaadanaynaa barnaamijkeena ku soo qaadanaynaa dhowr su'aalood iyo dhowr jawaabood su'aasha koowaad waxay tahay maanta aan soo qaadanayno man as-saxaabiyu alladii ataa bikhabari almushrikiina fii ghaswati alaxzaab saxaabigii la yimid wararkii mushrikiinta dagaalkii ghaswat alaxzaab warbixinta ninkii nebiga u keenay sala allahu calayhi wasalam oo uu u diray keebuu ahaa su-aasha haddaan ku celina waxaa weeye saxaabiga nebiga oo la yimid sala allahu calayhi wasalam khabarka mushrikiinta iyo wararkii mushrikiinta fii ghaswati alaxzaab waa kuma saxaabigaas magaciisa waa muxuu yahay kee weeye intaanan jawaabta u gudbin ghaswat alaxzaab waxay dhacday fii bidaayadeeda waxay ahayd ghaswadan fii shawaal sana khaamis hijri nebinimada sanadii shanaad ayay dhacday sanadii shanaad ee hijriga ayay dhacday ghaswadaas waxay ahayd ghaswo aad ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa uu kaga hadlay suuratu alaxzaabna oo ooga hadlay marka inta naga qusayso jus-iyada naga qusayso maanta waxaa weeye ghaswadaa markay dhacday ooy xaaladdu adkaatay oo nebiga sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiisina ay dhufayskii ay ku jireen gaaladii oo ka tiro badan oo ka cadad badanna ayagana dhinaca kale ay joogeen markii la isku daalay oo la ishorfadhiyey sidii la isu horfadhiyey la isku daalay ayay waxay go-aansatay isbahaysatadii iyo axsaabtii inay guuraan allah subxaanahu wa tacaalana wuxuu ku kiciyey dabayl iyo duufaan ayuu ilaahay ku kiciyey subxaanahu wa tacaala markaasuu nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu diray nin saxaabadiisa ka mid ah saxaabigaa keebuu ahaa marka jawaabta waxaa weeye saxaabiga nebiga warka oo la yimid fii ghaswati alaxzaab wuxuu ahaa xudayfatu bnu lyamaan siru rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam xudayfatu bnu lyamaan buu ahaa xudayfa nebigaa diray sala allahu calayhi wasalam abu sufyaan iyo ciidankan warkooda ii keen buu yidhi xaaladduna habeen waxay ahayd qabow daran uu jiray ayay ahayd wuu baxay warkii nebiguu qaatay nebigana wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam gacan ma qaadi kartid ciidankii buu dhex galay abu sufyaan asagana nin khibrad badan buu ahaa oo feejignaan badan oo dagaalka iyo xeeladiisana aada u yaqaana ayuu ahaa markaasaa wuxuu yidhi waanu guuraynaa nin walba ninka ku dheggan ha iska fiiriyo ha iska hubiyo markaasuu xudayfa wuxuu leeyahay waxaan guda galay qofkii igu dheganaa ama dadka dhinacyaha iga jiray inaan ahda warkeedahayd adiga si isaga aan looga shakinin marka inaan kusii dheeraado ma rabo dhacdadaa iyo qaabkii ay u dhacday inaan kusii dheeraano ma rabno keliya su-aasha iyo jawaabta ayaan kusoo koobaynaa barnaamijka saxaabigaa wuxuu ahaa baan niri jawaabta xudayfatu bnu lyamaan ayuu ahaa su-aasha labaad man xaamilu khitaabi الnabiyi salى allahu calayhi wasalam ila almuqawqis nebiga saan ognahayba wuxuu diri jiray warqado boqorada iyo muluugta ayuu u diri jiray risaalooyin ayuu u diri jiray risaaladan qofkii qaaday khitaabkii nebigana uu ku qornaa sala allahu calayhi wasalam
boqorkii Muqawqis la dhihi jiray u geeyey saxaabigaas keebuu ahaa saxaabiga magaciisa laga doonaya saxaabiga magaciisa ayaa laga doonayaa xambaaray oo qaaday khitaabkii nabiga sallallahu alayhi wasallam yani warqadii nabiga Muqawqis u geeyey boqorkii la dhihi jiray jawaabta oo kooban waxa weeye Xaatib ibnu Abi Baltaca saxaabiga qaaday warqada boqorkana u geeyey wuxuu ahaa Xaatib ibnu Abi Baltaca Xaatib keebuu ahaa taariikhdiisa dhacdooyinkiisa qaar ka mid ah marar kale aan soo qaadan doonaa insha Allah taala su'aasha saddexaad waxay tahay man ash-shaykhan fi cilmi al-hadith cilmiga xadiidka markii la joogo shaykhan yaa loo yaqaanaa shaykhan waa kuwa labada shaykh oo fi cilmi al-hadith haddii la itlaaqo shaykhan la yiraahdo labada sheekh magacooda ayaa laga doonayaa man ash-shaykhan fi cilmi al-hadith shaykhan waa kuwa cilmiga xadiidka dhexdiisa markii la joogo in badan oo daawadayaasha ka mid ah waxaan filayaa in jawaabta ay fahmeen li'annahu waa waxyaabaha qof kasta oo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam wax ka garanayo uu garanayo weeye man ash-shaykhan fi cilmi al-hadith jawaabtu waxaa weeye al-Bukhari wa Muslim waa Bukhari iyo Muslim shaykhan haddii la yidhahdo fi cilmi al-hadith labada sheekh ayuu ku dhacayaa magacaas su'aasha xigta waxay tahay man as-saxaabiyu alladii cuutiba fiihi ar-rasuulu sala allahu alayhi wa aalihi wasalam saxaabiga nebiga loo canaantay oo nebiga lagu canaantay asaga sha'nigiisa iyo arrinkiisa kee weeye dadka ehlu tafsiirka ah ee cilmi tafsiirka wax ka garanayo waxaan filayaa jawaabtaa inay horey ka fahmeen man asaxaabiyu saxaabigii waa kee alladii cuutiba fiihi arasuulu sala allahu calayhi wasalam saxaabiga lagu canaantay arrinkiisa iyo sha'nigiisa saxaabigaas waa kee jawaabtu waa sidaan soo socoto saxaabigaas waxaa la yihahdaa cabdullaahi ibnu ummi maktuum waa saxaabigii suuratu cabasa watawallaa ee ku soo degtay waa saxaabigii nebiga sala allahu calayhi wasalam arrinkiisa lagu canaantay canaan latifan lagu canaantay intaa ayaanu ku joojinaynaa su'aalihii iyo jawaabihii barnaamijkii ahaa baro diintaada waxaan filayaa qof walba labadii jalso hore iyo jalsadanba inaad qorateen su'aalaha iyo jawaabaha kana faa'iidaysateen baan rajaynayaa ilaahayna waxaan ka rajaynayaa subxaanahu wa tacaala in badanoo ummaddeenna ka mid ah inuu ilaahay ku anfaco hada wabillahi tawfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم